Somaliland waxa ay qabtaa walaaci ugu weynaa in awood ciidan loo adeegsado deegaano ka mid ah maamulkaas in gacantooda laga saaro. Djibouti ayayse ku eedeynayaan waxaan warbixintan ku eegi doonaa 13 xubnood oo la sheegay in xukuumadda Djibouti ay u soo dirtay Muqdisho abaabul ciidanna ay ka wadaan caasimadda Muqdisho. muuqaalkan ayaynu ku soo koobi doonaa caawa waxaan ahay Yuusuf Maxamed Axmed haddii aad igu cusubtiin fadlan ku soo biira page-kayga oo ka mid noqda saaxiibada igu xiran si aad halkan uga heshaan warbixino muuqaallo aan had iyo jeer halkan aynu ku soo baahino. waxaa marka ka sii dambaysa cirka isku sii shareeraya khilaafka u dhaxeeya maamulka Somaliland iyo dawladda Djibouti iyadoo markan ay soo baxayso walaac xoogan oo la xiriira in xukuumadda Djibouti ay wado abaabulkii ugu dambeeyay ee ciidan isla markaana la doonayo in deegaano Somaliland ay ka arrimiso gacanteeda looga saaro awood ciidan. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Somaliland ka dhisan ee Ucud Faysal Cali Waraabe oo bartiisa Twitterka ku soo qoray qoraal ayaa shaaca ka qaaday in 13 xubnood oo ka soo jeeda beesha Samaroon ay dawladda Djibouti u soo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isla markaana ay ka wadaan caasimadda Muqdisho abaabul ciidan kii ugu dambeeyay. waxa uu sheegay in Djibouti arintaasi ay ka shaqeynayso walaacanse waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalmihii ugu dambeysay la hadalhayay in awood ciidan laga abaabulayo gudaha Djibouti isla markaana ka dhan ah xukuumadda Somaliland oo kol hore si aan ka gambasho lahayn oo u shaaciyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu Djibouti iyo Somaliland waxa si weyn loo hadalhayay Djibouti taageerada iyo garab istaaga ay u muujinayso xubnaha sida weyn uga godoodsan ama diidan jiritaanka Somaliland ee ah in ay sheeganayaan inay Soomaaliya inteeda kale ay ka go'een. waxa uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo si toos ah u qaabilay hogaamiyaha Awdal State oo uu balanqaadyo uu u sameeyay kulamo lagu gorfeeyay arrimo badanna uu kula qaatay madaxtooyada Djibouti maamuus sarana u muujiyay taas oo keentay in xukuumadda Somaliland ay aad uga carooto tallaabadaasi. kulankaasi kadib maalmo xigay waxa uu la kulmay hogaamiyaha SSC Qaatuma Firdhiye oo uu ku qaabilay madaxtooyada Djibouti oo si heer sare ah uu soo dhaweeyay isla markaana xukuumadda Somaliland walaaceeda sii kordhiyay waxay keentay in xukuumadda Somaliland ay albaabada isugu dhuftaan xafiiskii Djibouti ay ku lahayd magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah Somaliland. eedan uu jeediyay Faysal Cali Waraabe weli war rasmi ah kama soo saarin jiritaankiisa dawladda Djibouti iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. walaacyadana soo taraya ee ay muujinayso Somaliland waxa uu ku soo aadayaa xilli la sheegay in qaybo ka mid ah gobolka Awdal laga abaabulayo ciidan la sheegay inay si toos ah uga howlgali doonaan gobolka Awdal kana shaqeyn doonaan sidii gacanta Somaliland looga saari lahaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkaas oo kol hore xukuumadda Somaliland ay heshiis kula gashay Ethiopia in dhul xeebeed iyo saldhig ciidan halkaasi laga siiyo isla markaana dekad ay ka sameystaan waa Saylac iyo Lughaye. waxayse u muuqanaysaa mid Somaliland dab ku sii shidaysa isla markaana god dheer ku sii ridaysa rajadii ay ka qabtay in dunida ay ictiraaf ka hesho. wixii warar ku soo kordhay xiisadan page-kayga isha ku hay halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa. nabadgelyo.